waxa laala wixii halka ka dhacay ee dilalka ahaa sidaan hore u sheegay annaga iskale oo arinta tuurta ku qaadanay beesha kale ee naga soo horjeeda Naaleeye Axmed waxaanu leenahay u samra oo arinta intaan wax ka qabanayno idinkana samir baanu idinka sugaynaa sida horeba ugu samirteen waana ku ammaanantihiin ehelada waxaanu leenahay nagu sima oo nasuga haddii ilaahay ka dhigo hadday garaad tahay hadday caaqil tahay hadday oday tahay haddayna garbood tahay intaba waanu idin leenahay mar walba waxa la yaabaa balaayada iyo dhibku wuxuu ugu fudud yahay in marka kala joogo markay sii siyaadaba waa dhibkii oo sii siyaaday marka inay isxakameysaan baan idinka codsanaynaa annana dee waxaana la gudboon wixii ceeb meesha ka dhacay wixii sidii aan u hagaajin lahayn maanta halka kan oo bishii 30 tahay waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ujeedadiisu tahay dhacdo dilal ah oo ka dhacay gobolka Sanaag nawaaxiga ay xukunto magaalada Ceelaf Weyn bisha 28keedii waxa lagu dilay laba marxuum oo gacan ka xaq daranay halka ku dishay arinta iyada ah iyo dilal ka horeeyay oo isla beesha dilalka geysay 28kii laba dil oo ka horeeyay ay dhacday ayaanu maanta shirkan jaraa'id u qabanay marka ugu horeysa inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun marxuuminta la laayay ee gacanta ka xaq daranay dishay ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu jannada firdawsa ka waraabiyo ehelkoodii iyo guud ahaan beeshoodii inuu samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo annagu waxaanu nahay beeshii gacanta lahayd ee dilalka geysatay oo soo noqnoqday aad iyo aad baanu uga xunahay dilalka halka ka dhacay ee istaba joogga ah waxaanu leenahay waxaan baaraynaa dilalkaas waxay ahaayeen dilal fool xun oo halka aan looga baahnayn eeriyadaasoo muddo badan dadkaas iyagu nabadgelyo ku wada noolaayeen iyadoo ay meelo kale ka dhacayeen iyo gobollo kale dagaalku ka socday aan marnaba dagaal ka cusboonaan oo dagaal ka dhicin dadka dilka geystay waa dad qayral mas'uuliina oo aad aanu uga xunahay dilalkay geysteen waxaanu leenahay dilka foosha xun ee dhacay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaanu dib dambe mid inoo ku soo noqda aanu noqon ee uu noqdo kii inoo ku dambeeyay dadka ku nool iyo kuwa dilalka loo geystay dadkoodiina waxaanu leenahay tacsi dabadeed waxaanu idinka codsanaynaa inay isxakameysaan kuwii dilalka geystayna oo annagu ay ka tirsan yihiin beeshayadana insha Allah bismillaahi kariim waa ku daba joognaa aad iyo aadna waa uga xunahay waxaanu leenahay isxakameeya ciidamada hal kala qaado eeriyadaas waxay hadul nabdoon sideedii ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu soo celiyo waxa laala wixii halka ka dhacay ee dilalka ahaa sidaan hore u sheegay annaga iskale oo arinta tuurta ku qaadanay beesha kale ee naga soo horjeeda Naaleeye Axmed waxaanu leenahay u samra oo arinta intaan wax ka qabanayno idinkana samir baanu idinka sugaynaa sida horeba ugu samirteen waana ku ammaanantihiin si loo garto waa 4 dil oo 3 jeer oo isku xiga dhacay geerida iyo dilka yimi ee foosha xun ee xaq darrada ah aad baan uga xunahay wax lagu talagalay ama tala ku yimi ama shir ku yimi ama ku talagal lahaayoo la yiri beela iska arkeen ma ahayn tala xumaala sameeyay waxaanu leenahay arrinka tala xumaalu sameeyay aad baan uga xunahay waa ka tacsiyadaynaynaa eheladii iyo reerkii iyo guud ahaan
cid allaale ciddii hawshaasi ehel u ah dhammaantiin waa idinka tacsiidaynaynaa waxaanu leenahay hawshaa iyada ah ee aan ku talagalka ahayn wixii ka dhacay sidaa suldaanku sheegay waa isdaba joog bay ahayd intaaba waa ka hadlaynay maantana waa ka hadlaynaa waxna waa ka qabanaynaa insha allah bidmillaahi kariim waxaanu leenahay hana lagu simo hana lagu sugo ha lagu samro taladeedaan u fadhinaa arrinkeedaan u fadhinaa wax allaale wixii wanaag iyo dhaahin iyo isu soo dhowaanshiyabaana diyaar baanu u nahay eheladdaa waxaanu leenahay nagu sima oo na suga haddii ilaahay ka dhigo hadday garaad tahay hadday caaqil tahay hadday oday tahay haddayna garbood tahay intaba waanu idin leenahay halkaana waxa ka dhacay intayadaa iyo inta la noocaahee ama salaadiin leh ama cuqaal leh ama reer leh kuma jiro kulama soconno waa ka soo hor jeednaa waa ka xunnahay nabadgelyaannu wadnaa nabadgelyaannu sidnaa hana lala qaato aad iyo aad iyo aadna waa mahadsantihiin baaraka waa sidaa ay u sheegeen salaadiinta iyo iga horreysay waxaanu isugu nimi halkan inaannu geerida xaqdarrada ah ee raggaasi ku dhintay labadaa marxuun ay ku dhinteen in aanu markaa halkan ka dirro tacsi muujinno sida aanu uga xunnahay ballan qaadnana in aanu waxaa dhacay wixii lagu maydhi lahaa inaannu diyaaru nahay ee lagaga bogsan lahaa inaannu intaan idin soo gaadhsiinno waa ogtihiinoo dad ilaahay rumeeyey baynu nahay qadarku khayr iyo shar labadaba waa leeyahay qof walbana saacadda uu dhimanayo iyo waxa ilaahay ku sababayo waa wax hore loo qoray weeye marka waa ilaahay kaa masiibadaa raggaasi ay ku dhinteen ee tala xumaalaha ka timi waa wax ilaahay qadaray oo aynu rumaysannahay waxa inala gudbooni ee ay tahay meesha yaalla waxa weeye inaynu isaga tacsiyadayno wixii dhacayna wixii lagu daweyn lahaa ee lagu maydhi lahaa ceebtaa iyo mashkiladdaa lagu daweyn lahaana inaannu tuurta u ridanno ehelkii iyo guud ahaanba reerkana waa idinka tacsiyadaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala iyagana waxaynu uga baryaynaa gacan ka xaqdaran baa dishay ilaahay jannatulfirdows inuu geliyo oo uu dunuubtooda dhaafo eheladii iyo dhammaanba reer tolweynahabana in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo iyo cawilsan ayaynu ilaahay subxaana wa tacaala weydiinaynaa waxaanu rajaynaynaa oo idinka codsanaynaa inaa isxakamaysaan oo haddii ilaahay ka dhigo insha allahu nabadda aynu gacanta isugu geyno waayo wixii kastee sii kordha mar walba waxa layahay balaayada iyo dhibku wuxuu ugu fudud yahay un markaa kala joogo markay sii siyaadaba waa dhibkii oo sii siyaaday marka inaa isxakamaysaan baanu idinka codsanaynaa annana dee waxaanala gudboon wixii ceeb meeshaa ka dhacay sidii aanu u hagaajin lahayn wixii lagaga dawoobi lahaa ee lagaga bogsan lahaa falka aadka iyo aadka foosha xun si yaa annagana laga doonayaa oo aanu diyaar u nahay